shalay tadan qoynay sadaraad wiil dhalinyaro ah ba Ethiopia wuxuu iga soo diray WhatsApp ka fariin iga soo faray wuxuu yiri Sheekh Umalow horta murtad baad dhiigaaguna waa banaayay kow ilaahayna janno ku gelin maayo xaraam bay jannadu ka tahay war maxaa dhacay nabigaad meel kaga dhacay war bal ii soo sheeg xageen kaga dhacay soo saas iyo saas maadadi si fudud maana ka doodin inaan gaalahay kalama doodin inaana jannada galayninna kalama doodin iyo inaan galayo toona laakiin si fudud baan masaladii waxaan ugu diray axaadiista ku soo aroortay waxaan u diray aqwaasha ahlul cilmiga waxaan ku wadi meesha ka raadi wiilkii waa soo degay waxay hadda ii maraysaa inuu soo gaadhay oo yiraahdo sheekhow sidaasaan ahay noocaasaan ahay khayr Allah ku siiyo bal muxuu ahay waan fiirinaya aqwaasha ahlul cilmiga laakiin wax badan baa ii kordhay waxa ii dambeeyay marka dambe inaan dhahdo khaladkii ka laabo sheekh Umar janna ma geyn kartid ba WhatsApp ka xiriiri jiro Nairobi ah maalin dhaweyd baan blog iska saaray waxaan u saaray kilib iima soo diro ilaa waa kilib ku saabsan qoyska soo ka dhashay taariikhdoodii iyo say ahaan jireen iyo in ayagu Soomaali sanka haysan jireen waxa uu buwada kilib wacdi iima soo diro wax waana ama soo diro inta uu buwada balka warrama waagi hore 99 ma ninka bartay waagi hore nin fiyo buu ahaa oo iska fiican hawshan aqooninba hadda qurban cudnaan weydiyo qoyskiisu garan waay أنا أصحون رير كاسة تهاي نيجا أسقاها وحن قرشها الموضة يا فدني والله طابت هذا ما كل حكي كيس مربض وكل باطينية